kulankani maanta ay yeesheen golaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo samato bixin lahaa dadka way abaaruhu saameyntu ay ku yeesheen ee ku dhaqan deegaanada maamulka Hirshabelle. Gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle Sheekh Cusmaan Bare Maxamed ayaa baarlamaanka waxa uu ka hor sheegay inuu soo dhisay guddi gaaraya 13 xubnood kuwaasi oo noqon doona sihayaasha sanduuq loogu gurman doono dadku abaartu ay saameyntu ku yeesheen ee ku dhaqan deegaanada maamulka Hirshabelle. Ugu horeyn waxaa arrinka ka hadlay golaha baarlamaankana gawaabin u soo jeediyay xildhibaan Sheekh Abuukar Cali Makhaney kaasi oo sheegay in tilaabo wanaagsan ay tahay tilaabada ay qaadeen golaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle lagana doonayo guddiga loo xil saaray in ay arrinkaasi fududeeyaan isla markaana ay aruuriyaan kharashaadka loogu gurmanayo dadku abaartu ay saameysay in si cadaalad ah ay u gutaan xilka loo idmaday. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wax alla wixii idinku dhaco dhibaato ah ama abaar ah ama colaad ah fabima kasabad aydiikum waa waxay gacmihiina kasbadeen. aayad kale Ilaahay wuxuu leeyahay markii fabima kasabad aydiikum wa ya'fu an kathiir wax badanna Ilaahay waa idinka cafinaya. waxa kale Ilaahay leeyahay subxaanahu wa ta'aala ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فسادكي وحو ظاهري بدي يبرغا أونا وحي أمد كسبتي وافي عنتهاي إلا قرمدو ددك دباتيسن وواحد أكتين مانتا دباتد يعني وحي ساميسي ودنك ودن قار أهان واحد أكتين لبضان قبل ودولة قولات Hirshabelle ay ka kooban yihiin dhibaatada inay saameysay. Ugu dambeyn waxaa guddiga ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle Sheekh Cusmaan Bare Maxamed kaasi oo sheegay in guddiga uu yahay guddi u khalma hawsha loo idmaday isla markaana si wanaagsan u gudan doona. waxaan magacaabay guddi ka kooban 13 xubnood oo xildhibaan ah kadib markaan arkay xaaladda abaaraha ee ka jirta dalka Soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan soo magacaabay guddi xildhibaan ah oo ka kooban 13 xubnood oo ka qayb qaata xaaladda abaaraha ee ka jirta dowlad goboleedka Hirshabelle kuwaas oo ay magacyadooda hoos ku qoran yihiin magacyada xubnaha guddiga golaha shacabka ee dowlad goboleedka Hirshabelle ee guddiga abaaraha xildhibaan Anab gudoomiye ku-xigeenka labaad xildhibaan Anab Axmed Ciise gudoomiyaha guddiga xildhibaan Maxamed Xuseen Yuusuf ku-xigeen guddiga xildhibaan Khaliif Muumin Tooxo xoghaye ama xoghaynta guddiga xildhibaan Cabdi Waaxid Axmed wadaad yare xubin xildhibaan Sheekh Maxamed Ibrahim Xuseen xubin xildhibaan Maxamed Wabar Xasan xubin xildhibaan Sheekh Axmed Cumar Libi xubin xildhibaan Nuur Xaashi Warsame xubin xildhibaan Aadan Maxamed Muuse xubin Aadan Bare xildhibaan Sheekh Maxamed Cabdikariin Maxamuud xubin xildhibaan Cumar Maxamed Cumar xubin xildhibaan Maxamed Siyaad Xurshow xubin xildhibaan Ismaaciil Cabdi Qaasim xubin mahadsanid. waxaa laga dhowr sugayaa waxqabadka guddigani loo magacaabay inuu noqonayo guddiga garab joogsiga dadku abaaruhu ay saameeyeen isla markaana saamiyada loogu talagalay dadkaasi in lagu samato bixiyo ay ku dhici doonto sanduuq iyagu ay maamulaan. Cabdifataax Ahmed Maclow, Cabdifataax Zaki, telefishinka caalamiga ah ee Bulsho, magaalada Jowhar.